Cuntooyinka ugu fiican qofku cuni karo waxa ugu horeeya digirta ama cambuulada sidaan u naqaano. Digirta ama cambuulada waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu badan ee borotiinka laga helo. Inkastoo la yiraahdo haddii waxyaabaha borotiinka laga helo ay jirkaaga ku bataan uma fiicna kelyahaada, haddana digirta waxaa qasaba qofku isbuuci ugu yaraan inuu ka isticmaalo 2 waqti ama 3 waqti. Sidoo kale cuntooyinka qofku inuu isticmaalo muhiimka u ah caafimaadkiisa waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano spinach ama koostada. Koostadu waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu badan ee laga helo maadooyinka jirka ugu muhiimsan, ha noqdaan vitamin B, ha noqdaan vitamin A, ha noqdaan carotene. Waxyaabahaas oo dhan ayaa laga helaa koostada. Sidoo kale koostadu ma fiicna laftigeeda inay jirkaada ku badato, sababtoo ah marka jirkaaga ay ku badato waxay dilaysaa kelyaha laftigeeda. Marka waxaa fiican koostadoo kale ayadana isbuuc inaad ka isticmaasho 3 mar oo kale. Lowska waa qaybta saddexaad oo aan leenahay waa cuntooyinka ugu fiican ee qofku isticmaali karo. Lowsku wuxuu muhiim u yahay xusuusta, neerfayaasha maskaxda iyo dhammaan xididada. Sidoo kale lowsku wuxuu kor u qaadaa shaqada wadnaha. Cuntooyinka marka waxaa laga kala qaadaa cuntooyin qofka intuu u baahan yahay inuu cuno ay qasab tahay iyo cuntooyin ku fiican in qofku xilliga uu dhargan yahay ama uu wax cunay inuu cuno. Marka lowsku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha baahida lagu qaato. Lowsku marka uma fiicna dadka gaaska qaba, uma fiicna. Waxaa la leeyahay marka haddii aad gaas qabto waxaa qasab ah inaad isticmaasho lowska cuntada ka hor. Haddii aadan gaas qabin, lowska cuntada kadib waad isticmaali kartaa. Markaan marka wax yar u laabto digirta, dad waxaa jira marka digirta xasaasiyad ku qaba ama cambuulada. Waxaa fiican dadkaas inay isticmaalaan qamadi ama salbuko, sababtoo ah qamadiga iyo salbukada intooda badan dadku xasaasiyad kuma keenaan. Karootadu waxay ka mid tahay waxyaabaha u fiican maqaarka. Waxaa laga yaabaa hadda qof kastoo Soomaaliya markaad weydiiso karootada, waxaa laga yaabaa inuu indhaha kow kaaga bilaabo. Karootada waxaa la yiraahdaa wax uga fiican maqaarka ma jiro. Dadka karootada cuna maqaarkoodu waa liishe, finanka wejigana kuma badna. Sidoo kale karootadu waxay socodsiisaa caloosha. Haddii caloosha ku fadhido ama baabasiir aad qabto, cabista ama cunista karootadu muhiim ayay kuu tahay. Yaanan ka tegin cambaha. Cambuhu dadka inta badan muhiimadiisa ma yaqaanaan. Cambuhu waxaa ku jirta cambaha laftigiisa maadada carotene oo ah maaddo muhiim u ah aragga. Marka haddii araggaagu daciif yahay, haddii aad qabto sokor, intaba cambuhu muhiim ayuu ku yahay. Cambaha waxaa la yiraahdaa wax uga fiican indhaha ma jiraan. Qaraha marka laga hadlayo waxaa la yiraahdaa waaba natural Viagra ama feegaha dabiiciga. Feegada inta badan waa kaniini loo isticmaalo raganimada iyo waxyaabahaas xoojiya. Inkastoo uu yahay kaniini aan aad u fiicnayn oo dhibaatada uu keeno iyo waxyaabaha qofka u taro ay badan tahay dhibaatada uu keeno, haddana sababtoo ah feegada dadka cuna waxay u nugul yihiin ama u dhow yihiin inuu dhiigkar ku dhufto. Marka waxaa la yiraahdaa qaraha qofka isticmaala uma baahna inuu isticmaalo kaniiniyada kiciya dareemaha. Wuxuu aad muhiim ugu yahay raganimada. muuqaalka qaybtiisa dambena waxaan kusoo qaadanaa 10 saaxiib ee faalada ugu badan naga dhiibtay, sidoo kalena sida joogtada noola socda. Waxaa ugu horeeya Burhaan Abuukar, Hani Jaalle, Yacquub Xasan, Nadar Cadaawe, Cabdiraxmaan Tifow, Miski Nuur, Abshir Cabdulaahi, Ibaaq Xuseen, Cabdiraxaliim Cabdiqaadir iyo Ifraax Maxamed. Waxaan rajaynayaa muuqaalka inaad like saartaan, sidoo kalena qaybta faalada noogu reeba fikirkiina. aad baad u mahadsantihiin. haddii aad nagu cusubtaana subscribe.